iyagoo waxaad kaga dayatid jirin ayaa wuxuu isku dayayaa inuu adiga ku carqaladeeyo balse ha ahaanin mid u joojiya ka horreysi walaalnimadu waa wehel wadna qudha wadaago weligoodna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadii daawadayaal idlahaantiima meel kastood iga daawanaysaan waa walaasheen ubaxshide halka adiga daawanaysaana waa ubaxshide official fadlan waxa aan ku leeyahay haddii aad hore iila joogtayna waad ku mahadsan tahay haddii aad igu cusubtayna waxaan ku leeyahay fadlan ka mid noqo asxaabteeda igu xidhan furana gambaleelka sabskraybta si aad ula socoto barnaamijyada aan soo gelin doono adiga oo ka mid noqon doona asxaabteeda caawa mawduucaygu waxa uu ku saabsan yahay dadka ka xun dadka noloshooda qof waxaad arkaysaa maxay ahayd toolay noloshaada ka xun kugu canaananaya ama dhaliil kaaga dhigaya waxa aad qabsanayso isagu wuxuu doonayaa inuu ku canaanto canaan buu kaaga dhigaya laakiin canaan kama aha waxa uu ka xun yahay waxa aad qabsanaysid midda kale qofkan ku canaananaya ama maxay ahayd toolay hadafka adigu aad leedahay adigu oonba gaadhinba hadafka aad leedahay kaa hor istaagaya isagu ma yahay ama markaad backgroundkiisa dib u egtid ma yahay qof isagu ku dayasho mudan ama wax lagaga dayan karo qof waxaad arkaysaa maxay ahayd toolay waxbaad sameynaysaa amba waxaad odhanaysaa ma ogtay waxaasaan sameeyey ama saasaan yeelay ama waxaasaan qabanayaa ama haddaad doonto wixii baad ku dhaqaaqdo waxaad odhanaysaa waxaasaa caynkaasoo talaad uga baahanta isla markiiba waxa uu ku siinayo ku odhanayo maad iska daysid waxaas waa sidaa iyo sidaas aniga ilama fiicna aniga ilama qurux badna waxaas oo dhanna waxa ay ka tahay tallaabada ama hiigsiga aad doonaysid in aad gaadhid ee aad qaaday ayaa waxa uu ku yahay muddooyinka badan dadka noocaasa soo badanaya waa lagu soo wacayaa waxaa lagu oranaya allah waxaasaad qabatay baa layidhi ama qof buu qofkii wacaya may iska dayso maxay waxaa u samaysay waxyaabaha noocaasa qofka bilaa-aadanka ee go-aan leh ama hadaf leh ama uu doonayo inuu wax samaysto haddaba maxay tahay waxa uu kaga hortegi karo maxaase nolosha uga qorshaysan isagu ma yahay qofkan wuxu uu yidhi maadaamuu hadaf lahaa hadafkiisiina uu qofkan walaalkiiya la qaybsaday isagu ma yahay mid ka niyo jabay markuu qofkani leeyahay walaalkiii inaad iska daysaa ila qurux badan waxaa inaad samaysid ma yahayn miyuu ku istaagay mise hore u socday maya ha istaagin ahaw mid hadafkiisa iyo wuxuu u socdo iyo guusha uu rabo mid ka mida gaadha ahaw midaan u joojin shaqsigana wuxuu ka hadlaayo mararka faraha badan waxaad arkaysaa adigoo isla guul gaad ama maxay ahayd toolay maskaxdaada ka shaqaysiiyo isle wallaahi bal xirfad ama ray la kaalay ama bal qof walba wax buu la yimaadaa adiguna dadaal la kaalay waad ku dhaqaaqaysaa carqaladahaagaa fara badanaya marba marka aad waxqabad muujisidna waa markay fara badanayaan carqaladahaagu ama cadowgaagu gabadh baa maalin soo wacdo say tiri ubaxee haysaan kuuhi hee walaal say tiri walaali maanta waan yaabanay waxaan kuuhi markaa maxaa kaa yaabiyey maxaa kugu dhacay waana qoslaysaa waana yaabantaysaa waxay tiri arrintii noocaaya iisoo kordhay hee ayaan walba qofkaa u sheegay siibay dumarkay u badan tahay waxyaabooyinka dadka arqalada inkastoo ahaaya hadda aan laba kala yaraysan markaa halkay bay tiri igala farxi lahayd intay aamustay bay tiri miyaad iska daysid walba sidaa iyo sidaasaa kuu dhaamilayde marka dadkeenu waxa weeyaan horta runtii maasha allah mararka qaar markaad u fiirsatid ama aad eegtid waxaad is odhanaysaa talow yaan qofba la tashan yaan qofba waxba u sheegin okay taladaadiyo waxaagiibaad wadatay howlahaagaad raaxatay markaana lagu dayn maayo qofku daynaya abarteedii katay because bannaan baad ugu soo baxday inaad wax qabataad ayaad isku dayday
abaaye heeley ama aboowo heelow waa ilaalo aan laguu diran ama waa shaqaale aan laguu diran. dadkay daawanaya kolley waxaa laga yaabaa waxyaabahan ka hadlaya dad khuseeyaa jirta oo waxyaabahan oo kale ay ku dhaceen, aniga igu dhici kartaa. marka mararka qaar aad aragtid carqalado kusoo hor istaaga, fadlan weligaa iyo allaha qof bilaa-aadan ha u joojin, ra'yigaaga ku meel mar. guul markaad hiigsanayso carqalo fara badan baa ku imanaya, dhibaatooyin badan baa kusoo gaari doona. ahaw mid aan u joojin, noqon mid markasta isagoo hadafkiisa eegta. maanta hadday dhibaata kusoo gaadho ama dhib kugu dhacaan, bilaa-aadan baynuna, waynu jilicsanoo daciif baynuna, waxbaa kugu dhici kara. saacaddaa waynu u nugulnay, balse ha ahaanin wixii maanta ku dhacay mid dib u fiiriya. mar walba waxaad isku daydaa in aad hore uga tallaabsatid. cadowgaagu ma guulaysan doonaan haddii aad wax kasta kugu dhaca aad hore uga tallaabsato. cadowgaagu ma guulaysan doonaan. run ahaantiina xaqiiqiyan aan ogahayna inta caqliga u saaxiiba ama inta waxgaradkiina aan ogaya igu raaci doontaa. mar kasta ood cadowgaaga ka guulaysato in ay farta dhexda ka qaniini doonaan. haddiise aad tiraahdo sidanaa igu dhacday, sidanaa laygu sameeyey, caynkanaa igu dhacday, cadowgaygaa badan, babababababa aad isdaciifisid, ogow cadowgaagu wuu kaa guulaystay. adigaaga i daawanaya haddii aad noola tahay qof bilaa-aadana oy nafi ku jirto aad tahay, yes cadowgaad leeda. saaxiibkaagaa cadowga noqon kara, jaarkaagaa noqon kara, ka kula dhashaa kula noqon kara, ka asxaabtaada noqon kara. qof kasta oo bilaa-aadane cadow uu leeyahy. haddaba seed uga guulaysan kartaa? mararka qaar waxaa ku soo wajahaysa oo kugu dhacaysa qofkan bilaa-aadanka ah. hadafka aad leedahay, tallaabadaad u socoto, waxyaabo fara badan oo waxaa jirta adiga noloshaada kuu sikareeda ama familkaaga u sikareeda. wax badanoo waxaa jira aad noloshaada kaga warwarayso, ta familkaaga aad kaga warwarayso. waxaa laga yaabaa inaad kaalin adag aad kaga jirta dhankaaga. soo qofkan bilaa-aadankeeye indha ku garaadlow, bilaa-aadan daciiflow, keliya wuxuu eegayaa ama uu fiirsanayaa waxa markaa aad samaynaysid. mase wuxuu ku leeyahay oo waxaasaaba sidaa ka imay, waxaa iska dayso. howlahaaga ma oga, wax kuu qorshaysan ma oga. noloshaada adoo dhisaya oo barafaktiya oo adag ayaad dhanna hawshaada ka wadanaysaa. nolosha kale iyo waxa aad qabsanaysaa wax isaga xidhan ma jirto. hadda tusaale ahaan, ilmuhu waqti ayuu jaanis leeyay, jaaniskiisa la siiyaa. hooyadu waqti bay nafteeda siisaa. guriga hagaajintiisi waqti buu leeyahay. waqtiyo waxaa jira adiga kuu qaasa oo aad naftaada bannaanka ugu soo qaadan karto, ama nin ahaw ama dumar ahaw. waxaa laga yaabaa sikino ama daqiiqado ama saacado aad wax ku soo fishan kartid in lagugu dhaliilo, balse ha ahaanin dhaliisha bilaa-aadamaha mid u nuglaada. ahaw mid markasta ka guulaysta, hadafkiisana ku meel gaadha. waayo bilaa-aadankiiba hadda waxay u bateen in ay iska kaa dhaliilaan. hadaf aad leedayood wadatidood waxaaga wadatidoodan waxbaba icaawi maad odhan, ila tali maad odhan, wax ila samey maad odhan. isagu wuxuu isku dayayaa inuu adiga ku liido ama maxay ahayd tolay uu ku dhaliilo ama uu dhib kuu geysto. haddaba qofkan kuu faanaya, khatarta isaga kaa dhigaya, meel sare iskeynaya, ha ku canaanto, haa dhegayso. qofka ku canaananaya mayo qof isagaad wax kaga dayan karto. ku dayasho ma mudan yahay? qof aragti dheer ma yahay? ood mararka qaar is oran kartid wallaahi qofkan wuxuu sheegayaaba waa dhab. waayo oyta waxaa la yidhi caqliga inta aan kugu jirin walaalkaabuu kugu jiraa. bilaa-aadankuna isku ray ma aha. waxaa laga yaabaa anu caawa waxaan ka hadlayo inaadan igula ray yahayn. adigaaga kale i daawanaya waxaad leedahay inaad tiraahid wallaahi waxaanay ka hadlaysaa waa waxay quseeya. maybe way dhici kartaa. marka waxa weeyaan
dadka qaarkood iyagoo on background lahayn, iyagoo waxaad kaga dayatid jirin, ayaa wuxuu isku dayayaa inuu adiga ku carqaladeeyo, balse ha ahaanin mid u joojiya. ka horreysi wax walba noloshaada iyo naftaada ha u noolaanin aadame, daciif ha noqonin, dhib kastoo ku gaadha ka gilgilo. isku day inaad mar walba ahaato qof teetal kale, dhibkii gaadhay qof dib u eega ha noqonin. maxaa kaa horeeya? ku dayo dadka inta wanaagsan, ku dayo inta caqliga la saaxiibka ah, la saaxiib inta garaad kale. qofaan faa'iido kuu soo wadin fadlan ha gelin noloshaada, liiska madow ku dar, faa'iidaba ka heli maysid. waxaad isku daydaa markasta in aad la jaan qaado qof adiga kaa teetal sarreeya, oo adiga wax ku tari kara ama ku kabi kara. kabitaanku adduun maaha, wax kale maaha. caqligaa layska kabaa, xirfad baa layska kabaa. kelmad kaliyo tiraadoon kaa faa'iido oon ku wax qaataa kabitaana. marka asxaabteyda qaaliga ah, waan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan eed mar walba iila socotaan ee aad iigu xidhan tihiin. fadlan waxaan kaa codsanayaa channelka Ubax Shide Official in aad sheerta, laygta, dhulumta, dhalamta intaba. barnaamijka caawa aan ka hadlayana waxaan rajeynayaa in aad wixii aad ka qabtid hoostaad iigu reebtid. waanan kaaga mahad celinayaa, waxaanan ku leeyahay meel kastoo aad joogtidba cimri dheer iyo caafimaad qab iyo cibaado suuban ayaan ku rajeynayaa. haddii aad caafimaad qabtana allah kugu wado, haddii aad bugtana caafimaad sareecana allah ku siiyo. annagana ilaahay ha noogu wado. caafimaadku waa lagama maarmaan. aad iyo aad baanan idin salaamaya.